marka laga hadlayo jacaylka rag iyo kan dumarka waa wax aad u kala fog laakiin labadaba wax waa ay jeclaadaan ninku qofka dumarka ah ee uu jeclaado lagama yaabo inuu niyadiisa ay ka baxdo waligii ama uu ku dhaco jacayl cusub waxaa taa inooga marag ah raggii jacaylka godka u galay oo ugu horeeyay cilmi bood oo aynu wada hayno jacaylkiisii sida ay uga dhadhamin weyday gabdhaha kale waa xasuus mudan Allah u naxariistay Sulub Cumar oo heesihiisii ka mid ahayd aniga iyo hilbahaygii kala hooyanay ereygan oo ka mid ah heestii magool ee sideeda sinta ma isa saarnaa oo isagana la sheegay in gabadhii uu jeclaa laga guursaday in uu diiday inuu niyadda ka saaro oo la sheegay inuu ballan qaaday inuu guursan doono marka la soo furo dabadeed sidaasna uu ku hoyday haddaba ninka ma hawl yaro siduu gabadh u jeclaado inta badan laakiin hadday taasi dhacdo weligii ma ilaabo su'aasha meesha taagan ayaa waxay tahay dumarka iyo ragga keebaa u jilicsan jacaylka dumarku waxaa u fudud in uu jacayl ku dhaco waxaana laga yaabaa in gabadhu ninka u yimaado laba goor ee indhaha intuu iska daba dhigo been ku sheegaya ay qalbigeeda dhigto haddii ay sidaasi ku jeclaato ay meel fogi kala tagaan ama muddo aanay is arag waxa macquul ah in haddii mid kale u yimaado in jacaylka gabadha lagu beeray uu ku masaxo aftahannimadiisa uu ku beero mid cusub waxyaabaha kalifa in gabadhu markiiba jacaylkii hore ka baxdo waxaa ka mid ah inuu ilowshaha dumarku ku badan yahay taasna ay ka mid tahay mid Ilaahay ku abuuray tusaale gabadhu waxa ay si dhaqso ah u ilowdaa xanuunka foosha si taranka u bato waxa kale aynu ognahay in aanan lahayn ilaa hadda gabar jacayl u dhimatay walow la sheego waxa isku dhintay Qays iyo Leila xodan iyo cilmi boodhari waxaan sheekooyinkaas iyo qisooyinkaasba ku cad in jacaylku ku horeeyay ninka